aniga oo Xasan Cabdi Aadan waxa oo kamid qaban qabayaasha munaasabadan xusuustii xasuuqi ka dhacay Jamhuuriyadda Djibouti magaalada Djibouti kartiga Arxiba 18 bishii December 1991 horta waxaan mataqaanayay tacsi u dirayaa dhamaanba dadkii meesha ku geeriyooday ehladooda iyagana Ilaahay u baryaya mataqaano jannada ka waraabiyo waxa kale tacsi iyo u dirayaa maxaan ku dhahaayay ula ducaynaya oo mataqaano Ilaahay u naxariisto leeyahay dadkii badnaa ee lahaa madax ee shicib lahaa ee dawladda xukuumadda mataqaano Ismaaciil Umar Geel ay kuleysay inta awoodda hayso dalkeena marka waxa kale ma halka ka salaamaya anan mataqaanay mahad u diraya dadkii nagu soo gargaaray ee ka soo qayb galay maxaan ku dhahaayay banaanbaxa aanu ku sameynay magaalada Ottawa ha ahaato baarlamaanka Canada hortiisa ha ahaato safaaradda Faransiiska ama ha u dambeysay Mareykanka marka waxaan leeyahay walaalayaal wad mahadsantihiin wadankeenu uu idin baahan yahay mataqaanayay maanta hadii isbedelka uu dhici waayo wadankeena oo xukuumaddaas ay sida ku sii joogto waxaynu mataqaanay halka aan iga muuqdaa shakhsiyan wax wanaagsan maaha